gudida waalidiinta iskuulka hoose dhexe ee Dhoolayr ee magaalada Ceelafweyn maamulka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer degmo ayaa maanta maray saxaafadda la hadlayeen beeniyay war ay ka sii daayeen dhawaan qaar ka mid ah saxaafadda madaxa banaani warkaas oo ahaa in lacag fiican laga qaado ardayda wax ka barata dugsigaas iyagoo arrimahaas ka hadlayana wax hadalkoodii ka mid ah anagoo gudigii waalidiinta gudoonkii waxbarashada maamulkii dugsiga dhexe hoose iyo odayaal kale dhammaan anigoo ku hadlaya magaca gudiga waalidiinta gudoomiyihiin maanta waxaanu halkan saxaafadda ama shirkan u qabsanay inaanu ka hadalno waxyaabaha daruuriga ah ee jira iyo waxyaabaha soo kordhay ayaamaha kan xagga iyaga oo aanu u aragno inay tahay dacaayad iyo waxaan hubsan sideedaba saxaafad waxaa lagu yaqaanaa waa wax loo baahan yahay nolosha ayay ku mid yahay warku in war la helo waa wax shay nolosha ka mid ah warkuuse waxaa loo baahan yahay saxaafaddu inay hubiso warka ay dirayso dhammaan baa wada fadhina guddigii waalidiinta gudoomiyihii waxbarashada maamulihii dugsiga hoose dhexe waxaanu dhaliil weyn leenahay qofka waxaanu ogeyn dira meel kasta baa ka u dira dibad inay tahay qalad waxaan kaga hadlaynaa arrimo ku saabsan waxbarashada dhammaan anagu fadhina gudoomiyihii waxbarashada degmada maamulihii dugsiyada hoose dhexe gudoomiyihii gudida waalidiinta gudidayadii kale waxa duula hadal oranaya degmada Ceelafweyn dugsiyadeeda waxa laga qaadaa fee waa been waxaan saliye raatoona lahayn annaga waalidiintii ubadka dhashay annaga gudidii waalidiinta annaga dadkii dalka u damqanayay annaga dadka xaqiiqada ku taagay marka arinta waanu beeninay aniga waa maamulaha dugsiga hoose dhexe Dhoolayr degmada Ceelafweyn waxaan halkan ka beeninayaa laba qodob oo ku baxay saxaafadaha madaxa banaan qaarkood labada qodob oo ah in iskuulka fee laga qaado oo macallimiinta lacag ka qaado iyo waxbarashada dugsigu aanay jirin oo baabaaday labada qodob oo laba qodob aan jirin maanta dugsiga hoose dhexe waxaan isugu nimay aniga iyo guddiga waalidiin iyo maamulaha dugsiga hoose dhexe qaar ka mid ah macallimiinta inaanu beenino warkii ku baxay 22kii bishan March 2016 oo ahaa in maamulaha dugsiga hoose dhexe uu qaado fee oo ardayda fee ka qaado sida waalidiinta guddiga waalidiintu sheegtay guddiga waalidiintu iyaga iskuulka gacanta ku haya iyaga kormeera maamulaha la maamula waxaana ogeyn maamuluhu kaliya kuma dhaqaaqi karo waa arrin aan saliye raatoona lahayn Axmed Mursal Askar TV-ga caalamiga Universal Ceelafweyn